culays amni ayaa soo wajahay caalamka tan iyo markii carrada Ukraine ay galeen ciidamada Ruushka si gaar ah reer Yurub iminka waxay dareemayaan inay lama huraan tahay in la xoojiyo ammaanka xuduudaha cabsidu waxay tahay Moscow oo go'aan gaar ah ku gaartay waxay ugu yeertay hawlgal gaar ah inay ka fuliso gudaha dalka Ukraine NATO dhawaanahan waxay waday abaabul iyo isku dabarid ballaaran ujeedka laga lahaase waxaa lagu qeexay inuu ahaa difaac madax banaanida iyo u heelinta qaanuunka dunidu ay ku heshiisay iyo in laga fogaado gardarro kasta iyo gaboodfallo kasta oo koonka mar kale ka dhaca iyadoo tani loo fasiran karo fariin maldahan oo gaararka Moscow wareegaysa marka aanu fiirino fariimihii ugu dambeysay dhaqdhaqaaqa ka imaanaya reer Yurub waxay iftiiminayaan cabsida iyo culayska jira heerka uu gaarsiisan yahay ma lagu degdegi karo saadaasha iyo sidoo kale ka xog waranka qeexitaanka u baahan colaadaha tani balse Moscow kol hore ayay dhagaha ka fureysatay inay maqasho dhawaaqa ka imaanaya reer Yurub iyo Mareykanba balse hadda dhaqdhaqaaq ayaa ka imaanaya gobolka gaar ahaan reer Yurub waxay ku heshiiyeen inay adkeeyaan ammaanka xuduudaha NATO ayaana ah garabka ugu weyn ee deyrka adag waabaya wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub ayaa marqaati ka ah nidaamka lidka diyaaradaha ee saldhigga Slovakia kaas oo ujeedku uu yahay in lagu xoojiyo ammaanka xuduudaha dalalka kan wasiirka difaaca Jarmalka iyo wasiirka difaaca Holland oo ay weheliyaan dhigooda Slovakia ayaa booqday saldhigga ciidamada cirka ee dalka Slovakia booqashadoodu waxay ahayd mid ay si gaar ah ugu kuurgalayeen hanaanka difaaca hawada iyo mudnaanta hubka kan oo u leeyahay xaqiijinta amniga caalamka gaar ahaan xulafada reer Yurub iyo NATO ujeedku waa in dhaqdhaqaaq kasta oo loo arkay inuu khatar ku yahay gobolka si toos ah oo aan haba yaraatee marmasyo loo helaynin looga hortago iyaga oo dareensan dhaqdhaqaaq walba oo aan dunidu xasilooni horseedaynin oo Moscow laga soo minguuri karayo wasiirada socdaalkooda gaarka ah ee indhaynta ee saldhigga sidoo kale waxaa u sii dheeraa inay eegayeen saanada hubka ee taalla muhiimadda iyo mudnaanta hanaanka difaaca ee hawada iyo inuu yahay hanaan hawlgal gaar ah ka fulin kara hawada iyo aagga difaaca ee dalalka kan sida ka muuqata hadal kooban oo ay warbaahintu siiyeen wasiirka difaaca Jarmalka iyo wasiirka difaaca dalka Holland oo sidoo kale uu wehelinayay dhigooda dalka Slovakia waxay booqdeen maanta saldhigga ciidamada cirka ee dalka Slovakia halkaas oo uu yaalo nidaamka difaaca hawada ee Patriot kaas waxaa la aaminsan yahay inay Netherland geysay bishii April ujeedka ugu weyn ee loo geeyo hubka kan xuduudu waxay ahayd si loo xoojiyo awoodda difaaca ee xadka bari ee isbahaysiga difaaca ee NATO iyada oo laga shidaal qaadanayo duulaankii Ruushka ee bishii February 24keeda uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukraine canaanta iyo cagajuglaynta caalamka ka imaanaysa marna kuma dhicin dhawaaqaas dhagaha Putin iyo maamulkiisa iyaguse waxay weli abaabul iyo isku dabarid ballaaran ku wadaan hanaankooda hawlgal ee dalka Ukraine dhaqdhaqaaq u muuqda iska caabin maangal ah ayay weli kala hortagaysaa ciidamada Raashiyaanka tani waxay qayb ka tahay Ukraine inaysan ogolaan fariin kasta oo handadaad ah oo ka imaanaysa Moscow Ruushka waa inuu cagta mariyaa xukuumadda Kiev ee u dhagan nugul reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo sidaas awgeed Putin ilaa uu ka xaqiijiyo hadafkiisa ugu dambeeya marna ma dhigi doono gantaalada uu gacanta ku hayo